بسم الله الرحمن الرحيم. أصحابتي ميل كستو جوجتان oo islaamiga intii magacayga iyo muuqay garmayso waxaan ahay suxufi ka howlgala gobolka Salal gaar ahaan degmada Seylac. waxaan doonayaa maanta inaan halkan uga mahad celiyo dadweynihii ka damqaday xarigaygii oo muddo baan ku xidhnaa xirada ciidanka militariga ee Djibouti ee Jeenaga ee magaalada Luuyacato. aad iyo aad baan ayaan igu mahad celinayaa dadka dhan magacooda ma wada sheegi karayo. guud ahaan waxaan leeyahay waan mahadsantihiin, ilaahay aniga jisaysiyo meel kastoo joogtaanba aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sida aad uga damqateen xarigaasi. sidoo kale waxaan doonayaa inaan halkan uga mahad celiyo isla ciidankii xariga ii geystay, kuwaasi oo markii ay ogaadeen arrintii ay la xiriirinayeen ama dembiga ay la xiriirinayeen haba yaraatee wax luga aanan ku lahayn, markii ay ogaadeen ay xorriyadeeda dib iigu soo celiyeen, isla markaasina si wanaagsan ila dhaqmay. wixii nin lagu qaldamay laga yeelinay iga yeelay. aad iyo aad baan uga mahad celinayaa. sidoo kale dadweynaha ku dhaqan gobolka Salal waxaan ugu baaqayaa in ciidanka qaranka ama ciidanka militariga hadday noqoto haddii ay tahay ciidanka Bariisle, haddii ay tahay ciidanka Gaarisa, inta waxay ku howlan yihiin wallaahi aan ku soo arkay iyagoo bacadka waxa weeyaan u jooga xuduudda dheer cidda ka soo talaabaysa inay magaranaysaa ilaalo xooggan ay ka wadaan. waxaa leeyahay walaalayaal, farkiga fool ma dhaqdo, dowladda aan la shaqayno, ciidanka qaranka aan la shaqayno. waxay ka shaqaynayaan kulley dadaalkoogu intuu doonaabaha waxa weeyaan hal ekaadee waxay ka shaqaynayaan waxa weeyaan bacadkaasi u taagan yihiin. waa masiibada laga baqayo ee cid kastaaba ay waxa weeyaan juhdi ugu jirto sidii ugu hortagi lahayd xanuunkaasi faraha baan ku haya dunida ee coronavirus. marka walaalayaal, wallaahi waan qaaday sida u shaqaynayaan ciidanka qaranka ee Somaliland. sidoo kale waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa mas'uuliyiinta ciidanka militariga Djibouti, gaar ahaan ciidanka Jeenaga ee magaalada Luuyacato, taliyaha xiradaasi iyo taliye ku-xigeenka Caano. oon leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin, ilaahayna ha ila garab galo howlaha adag ee ku jirtaan ee ku saabsan ka hortagga xanuunka coronavirus. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، أقامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. xanuunka waan ka soo duceysanay, idinkuna ka duceystay. ilaahay umbaa naga qaban kara xanuunkaasi. annagu waan ka soo duceysanay, ka duceysta. ilaahay umbaa xanuunkaasi qaban kara.